halkan waa dhaanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Roble oo isku dayay inuu isbedel ku sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raagi iyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Yaasiin Farey iyo Cali Guudlaawe iyo Cumar Finish oo taliyaasha isku beeliyihiin oo sheegay inaysan xitaa shirka ka qayb gali doonin haddii lagu soo hadal qaado miiska wada hadalka waxa ka bedel lagu sameeyo taliyaasha haddaba saameynta leeg ay arintaasi yeelan doontaa warkeena ayaad ku daawan doontaan waxaad sidoo kale daawan doontaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland oo markaan wareersan kadib markii Imaaraadka iyo ay isku dhacaan dalka Kenya ayna doonayaan inay ku gorgortamaan madaxa hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe dowladda federaalkana waxa ay sheegaysaa inuu dhamaaday waqtigii loogu talagalay Axmed Madoobe inuu hogaamiyo Jubbaland isla markaana ciidamo dheeriya ayaa loo dirayaa Kismaayo haddaba xaalkaasi sidoo noqon kara warkeena ay qayb ka tahay dowladdu maxay xoog u saaraysaa magaalada dekedda ee Kismaayo warkeena ay qayb ka tahay u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownaa waxa muran ka taagan yahay qaabka isbedel loogu sameeyo arrimaha taliyaasha ciidamada gaar ahaan nabad sugidda iyo militariga oo hal beel ka soo wada jeeda waxa arintaasi si weyn u fashilay isla markaana fadeexada ka taagan banaanka soo dhigay Cali oo markaasi aad ula socday arrimahaasi waxuna sheegay inaan la aqbali karin arrimahaasi inay dhacaan sidoo kale hogaamiyaasha maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay sheegeen arrintaasi inaan la aqbali karin haddii ay dhacdana ay shirka iskaga bixiyaan in ay garwaaqsadeen in amniga qaranku uu yahay mid dastuuri ah oo aan lagu bedeli karin teendada Afisyooni waa xaqiiq oo ay markaasi wajaheen raggii runta iyo riyada isku qalday balse shardiga ah in wax laga bedelo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cornel Yaasiin Farey oo dhanka awood qaybsiga hal beel ka soo wada jeeda ayaa markaan waxa ay tahay arrin si weyn hadalka loo hadalhayo arrinta waa mid bartilmaameed iyo duulaan dana gaar ah lugta ku soo qaaday oo kii difaaci lahaa ayaa loo soo dhiibay oo waxa markaan ka shaqeynay in xilka laga qaado waa wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si weyn loogu garan og yahay 30 milyan haysta marka laga soo tago Yaasiin Farey yahay kusimaha ku yimid heshiis siyaasadeed haddii uu ku baxayana waxa ay tahay in dhammaan intii la timid oo heshiiskaasi lagu leeshiiyay iyaguna ay baxaan haddana laga soo qaado halkii hore oo ay wax marayeen haddana dhanka kale waxa xujo taariikheed oo faac ka faac oli doonta min madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay iska diideen in wax laga bedelo generaaladaas waxayna sheegeen in ay ku matalaan cid wax ka bedelaysan aysan jirin haddii ay yihiin beesha aan ka soo jeednay Abgaal ma jirto cid xilligan wax ka bedeli karta mana aqoonsan doono talaabooyinka ay wadaan xubnaha doonaya in taliyaashaasi wax laga bedelo ayaa laga soo xigtay labadaasi kaasi waxa ay muujisay in shirku uu layn kulul galay isla markaana dhinacyadu ay si adag isku weydaarsanayaan aragtidooda siyaasadeed iyo midda ku qotoma danaha siyaasadeed waxa sidoo kale banaanka timid arrin u baahan in markaasi miiska wada hadalka la keeno oo ku aadan qadiyada doorashooyinka taasina waxay u muuqataa arrin dhinacyadu ay si adag uga soo horjeedaan isla markaana abuuri doonta in jawi wada hadal isqancina lagu xalliyo taas oo muhiim u ah xaaladda gobolka iyo istiraatiijiyadda dad badan ayaa fahamsan in la gaaray xilliga wax laga qaba lahaa qorshaha lagu hormarinayo dadaalada wax ku halka lagu dhisayo dowladnimada taasina waxay la mid tahay qorshayaal dhowr oo sanadihii la soo dhaafay soo socday ka oo lagu hagaajinayo qorshaha dowladnimada sidoo kale kor loogu qaadayay qadiyadaha lagu dhisayo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii uu mucaaradka si toos ugu biiray isla markaana la taliyaashiisa uu ka dhigtay xubno ay ku jiraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa soo baxayay qalalaasaha iskhilaafka iyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale caqabadaha ka taagan hanaanka doorashooyinka balse haatan waxay u baahan tahay in si wada jira arrintaasi loo samata bixiyo dad badan ayaa fahamsan in la gaaray xilligii qorshuhu ahaa in kor loo qaado nabadgelyada istiraatiijiyadda iyo dadaalka loogu jiro dowlad dhisidda taasina muhiim ay u ahayd xaaladda gobolka sidoo kale dhinacyada ayaa fahamsan in la joogo waqtiga wax laga qaban lahaa caqabadaha maanta taagan isla markaana la iska wareysan lahay sidii loo dhisi lahaa nidaamka dowladnimada iyadoo dad badan ay fahamsan yihiin in khilaafka roob la abuuray haatan la joogo xilliga wax laga qaban lahaa carqaladahaas loona gudbi lahaa qorshe midaysan oo dhanka nabadgelyada
dad badan ayaana fahamsan intaasi tahay qodobka ugu macquulsan ee xilligan ay tahay dhinacyadu inay wax ka qabtaan. sidaas oo ay tahay dowladda federaalka ayaa fahamsan in isla qorshahaasi laga dhigo midka ugu muhiimsan ee xilligan lagu gaarayo qorshaha hortebinta ula qaranka, iyadoo taasi ay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay. dad badan ayaa fahamsan in la gaaray xilliga ugu macquulsanaa ee wax laga qaba lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaala dowladnimada, islamarkaana loo gudbi lahaa dadaal kastoo suurtagala si loo gaaro qorshe isku xiran oo muhiimadiisu ay tahay in la dhisto dowladnimo loo dhan yahay, madax bannaan, islamarkaana dhinacyadu ay tahay inay qayb ka qaataan halganka loogu jiro dagaalka caalamiga ee gobolka horyaala. dowladda federaalka sidoo kale waxay sheegtay in la joogo xilliga wax laga qaba lahaa caqabadaha dowladnimada Soomaaliya hortaagan, taas oo u baahan in si wada jira dhinacyadu ay wada shaqeeyaan. intaas oo ay jirto haddana waxaa sii kordhay dadaalka dowladda federaalka ugu jirto in lasoo afjaro dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku horgudba dowladnimada. taasina muhiim ayay u tahay dalka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. in laga wada shaqeeyana waxay xoojin kartaa shaqooyinka qaran ee xilligaani loo baahan yahay. taasina waxay sii xoojisay dadaalada loogu jiro in hanaankaasi si weyn looga wada shaqeeyo. ilwareedyo muhiim ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda federaalka si weyn ay u rumaysan tahay in qorshe isku xiran maanta la gaaro ay muhiim u tahay xaaladda gobolka istiraatiijiyadda. taasina waxay muhiimad gaar ah sii doontaa dadaalada loogu jiro in la dhiso hanaanka dowliga. dad badan ayaa sidoo kale waxay kor u qaadayaan shaqooyinka lagama maarmaanka waa dowladnimada, waxayna qayb ka tahay qorshayaashii ugu dambeeyay ee dalka iyo dowladdu ay ku gaari kareen waddo isku xiran oo dhanka istiraatiijiyadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo howlaha dowladnimada. sidaas oo ay tahay dowladda federaalka waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto caqabadaha dowladnimada hortaagan. taasina waxay xoojin doontaa shaqooyinkii ugu dambeeyay ee qaranka looga fadhiyay. ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan ayaana fahamsan in la joogo xilligii dalkani laga fakari lahay aayihiisa, islamarkaana la dhisi lahay tallaabooyinka ay macquulka tahay in lagu xoojiyo shaqooyinka dowladda. inkastoo ay taasi jirto haddana arrin xiise gaar leh ayaa markaan jirta. hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe, dowladda federaalka waxa ay sheegaysaa inuu ka dhamaaday waqtigii loogu talagalay inuu hogaamiyo Jubbaland, xilligaana la joogo xilliga wax laga qaba lahaa, islamarkaana lala tacaali lahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaala. taasi waxay qayb ka ahayd qorshayaal dhowr oo dowladdu dejisay in looga hortago qorshayaashaas, islamarkaana lagu dhiso wadada ugu muhiimsan ee xilligan lagu gaari karo qorshaha horumarinta qaranka. taasina qayb ay ka tahay in lagu dadaalo. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay markaasi sheegayaan in laga wada shaqeeyo arrimaha horumarinta qaranka, islamarkaana la gaaro tallaabooyinka xalka u noqon kara dowladnimada. muhiim ayayna u ahayd in arrinkaasi si weyn looga wada fakaro. dowladda iyo dalka ayaa sidoo kale waxay ka wada shaqeynayaan isla qorshahaas. muhiimad gaar ayay u lahayd dalka iyo dowladnimada. waxay sidoo kale qayb ka tahay arrinta ugu muhiimsan ee ay tahay xilligan in la gaaro. dowladda federaalka waxay xaqiijisay in la gaaray xilligii la dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka, islamarkaana la xooji lahay dadaalada wax ku oolka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ay ka wada shaqeynayaan. muhiim ayayna u tahay xaaladda gobolka. istiraatiijiyad la degsado oo dhanka ammaanka ayaa sidoo kale qayb waxay ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu xoojinayay nidaamka dowlad dhiska, waxayna qayb ka tahay dhowr tallaabo oo dowladda ay u qaaday in lagu dhiso ciidanka qalabka sida. sidaas oo ay tahay Axmed Madoobe markan uu yaaban yahay dowladda federaalka ciidamo ay sheegaysaa inay u dirayso gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ah magaalada dhaqaalaha ugu badan ay kasoo galaan Jubbaland. waxaana dowladdu ay sheegaysaa in magaaladaas qabsashadeeda ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee Axmed Madoobe looga saari karo meesha. ciidamo badan ayaa hore loo geeyay gobolka Gado, kuwaasi in la geeyo sidoo kale ciidamadaas inay qabsadaan magaalada Bu'aale ayaa qayb ka ah dadaaladii ugu dambeeyay. waxaa sidoo kale soo ifbaxay shaqooyin dowladdu ay si hoose uga wadato Jubbaland, iyadoo saraakiisha ciidamada iyo dadka kale ee dhaqdhaqaaqa iyo saameynta kule Jubbaland si gaar u xansanaysa. intaasi waxaa dheeriya in maamulka fadhigiisu yahay magaalada Nairobi uu hogaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo ay isku haystaan Imaaraadka Carabta cidda qaadanaysa taageerada Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa isagana wuxuu ka walacsan yahay labadaas dhinac mid uu raaci lahaa. Imaaraadkana waxay isku doonayaa inuu magaaladaas iyo Jubbaland isagu la wareego, siyaasadiisu ka shaqeydo si lamida Jubbaland, halka Kenyana ay doonayso inay difaacato maamulkaas, isla markaana ay ka dhigato mid iyadu ay ku shaqeysato. Axmed Madoobe ayaa haatan kulan wuxuu la qaatay danjiraha Imaaraadka Carabta iyo wakiilo ka socday dalka Imaaraadka Carabta kuwa Muqdisho kula shiray, waxayna ka wada hadleen qaabka ay u wada shaqeyn karaan.
Kenya iyaduna isha ayay kala socotaa, waxayna Axmed Madoobe cadaadis ku saaraysaa in ciidamadeeda ay kala bixi doonto Kismaayo, taasina ay u fududaan doonto in dowladda federaalka ay si fudud magaaladaasi uga qabsato, isla markaana ay tallaabo ka qaado Axmed Madoobe ay soo xirto. Balse dowladda federaalka ayaa dalbatay ciidamada Kenya inay isaga baxaan Jubbada Hoose. Guud ahaan daawadayaal intaasi waxaa nooga warka dhaanka wararka tan intaa markale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.